Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal meel walbada adduunka ka joogtaan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo massage therapy. Massage therapy oo yacni Soomaalina loogu yaqaano adoo lagu soo duugay, adoo lagu soo riixay, yacni meel intaad tagtid meelaha u qaabilsan dadka lagu riixo lagu soo duugduugo ayaa yacni taasaan ka hadlaynaa massage therapy. yacni faa'iido intee leeg bay maxaad se dareemaysaa haddii aad yacni aad mar walbaba isticmaashid oo lagu duugo maxaa iska kaa bedelaya waxa ay dawo u tahay waxay xanuuno badan bay runtii dawooyin ay dawo u tahay haddii qofka la duugo marka massage therapy-gu ay ugu fiican tahay waxaa ka mid ah xanuunadaas dadka qaba hadday noqoto lafa xanuun yacni lagu xanuun qoorta ku xanuunaysa dhabarka gacmaha ama xanuunka la yidhaahdo yacni osteoarthritis oo rheumatism-ka qayb ka mid ah hadday noqoto kansarka dadka qaba hadday noqoto dadka dhiigkarka qaba dadka hurdo la-aantu hayso dadka ay yacni dadka madax xanuunka qaba ee madaxu xanuunayo dadka murqaha aadka u xanuunaan ee oo murqahoodu adkaadaan yacni subxaanallah lama soo koobi karo wax aan soo koobi karo maaha waxa ay u fiican tahay massage therapy yacni basically waa lifekaaga oo dhan bay maaragtay ay noloshaada iyo naftaada oo dhan bay u fiican tahay massage aniga runtii personally massage therapy-ga waan isticmaalay muddo dheer baan isticmaalay almost year baa ii dhamaaday maasha allah yeerkaas markii hore si saa'id ah ayaan u isticmaali jiray oo waxaan ka wadaa saa'id markaan leeyahay waqti xilli isku dhow baan isticmaali jiray laakiin markii dambe oo hadda aanan ugu baahnayn oo wax jirkay uu iska bedelay aan arkay faa'iido awgeed yacni faa'iido badan aan ka dareemay waan soo gaabiyey waqtigii oo yacni meeshan awal ka aadi jiray oo kale kaba soo qaad bishii 2 mar oo kale ama 3 mar ama yacni xilli waxaa jirtay aan aad ugu baahnaa marka hadda waxaan ka dhigtay hadda bishiiba 1 mar marka qofkii awoodi kara bishii 1 mar at least yacni qofku hadduuna 2 mar aadi karin dadku way kala xanuun badan yihiin hadday marquhu aad sayd ku xanuunayaan ama lafa xanuun ama qoor xanuun aad qabtid waxaa laga yaabaa inuu maaragtay qof walbaba dadku isku wada mid maaha qof walba xanuunkiisu waa la kala xanuun badan yahay waana la kala xanuun yar yahay marka yacni tan waxa weeye anigu waa waxaan soo tijaabiyey oo hadda maasha allah muddo aan waday oo yacni aan kuna dadaalayo inaan sii wado insha allah mar walbana aan ka faa'iidaysto inta aan maasha allah aan u baahan doono marka walaalayaal aan idin dhex galo faa'iidada massage therapy runtii yacni subxaanallah qofkii samaystay massage therapy baa dareemi kara faa'iidadeeda iyo yacni waxaa fiilgaraynaysid marka runtii horta waxaan kula waaninayaa gabdhaha Soomaaliyeed hadda walaalahayga i maqlaya i dhageysanaya iyo wiilasha Soomaalida qof weyn iyo qof maaragtay kaleba oo ka yacni u hayo jir xanuun iyo xanuunadii aan idin soo sheegay inaad iskula dadaashaan haddaad kaba soo qaad dadka aad saa'idka rheumatism-ka u hayo kale ay rabaan inay bishii 2 mar 3 mar tagaan because de waxay rabaan in la duugduugo ilaa wadankiina lama joogo ma ogta wadankii waa la isduugi jiray ama dadkaas oo kale runtii 3 mar 2 mar 3 jeer 4 jeer way rabaan in loo sameeyo laakiin anigu waxaan dhihi lahaa qofka yacni hadduu rabo caafimaadkiisa inuu wax ka bedelo waxaan la hadlayaa dadka rheumatism-ka qaba oo kale hadduu rabo qofka inuu noloshiisa wax ka bedelo oo caafimaadkiisa uu ku dadaalo waxaan kula talin lahaa massage therapy inay aadaan marka yacni lacagtu way iska yara badnaanaysaa ballamo badan haddaad samaysatid laakiin waxaa fiican inaad marba meel yar yacni investment yarisa intaad dhigatid naftaada aad xataa 20 door meel dhig 15 iska dhig kan dhig meel wax ku ururso maasha allah
si aad ma aragtay caafimaadkaagii ula dadaashid waayo kaadhka caafimaadku kaama bixinayo ogow taas kaadhka caafimaadku ma qaataan kaadhka caafimaadka kaama bixinayaan waa adiga jeebkaaga inaad ka baxsatid haddaadan awoodi karin ballamo badanna ku dadaal hal xabo bishii one time walaahi kaagama darayso maasha allah tabaaraka allah aad ba u fiican tahay okay waan kasoo gudbay dadka rumtiisan kahay dadka caadiga normalkaan la hadlaya hadda dadka normalka ah bishii hal mar baa idinku filan hal mar baa idinku filan especially dadka murqaha laga hayo dadka daalka tirada badan hayo dadka ayaga dhanba yani subxaan allah aanba seexan karin walaalahaas waxaan kula talin lahaa please take care of yourself naftaada dadaal samee naftaada si aad ku caawin lahayd waayo berito haddaad fadhiisatid qofku yani aad bay u adag tahay si aad jirhkaagii ama aada isku ilowdid murqa xanuunkii isku ilowdid oo jir xanuun badani kugu saayido ama lafa xanuun badani kuga taqaanaa aad qof mariidoo jiran aada noqotid way kasii adkaanaysaa hawshii yani markaad markiiba iska gaadhid xanuunkii marka walaalayaal waxaan idinkula talinayaa oo ka imaanaysa qalbigayga yacni soomaaliyay isla dadaala hays ilaawinina especially gabdhaha hooyooyinka ah ee daalay meel walbaba yacni awlaadii ma aragtay intaa ku hawshaysan please hal mar bishii hal mar baa kugu filan waa inaad tagtid meesha isduugduuga wallaahi noloshaada believe me wax badan baa iska kaa bedelaya maskaxiyan iyo jir ahaan waad isbedelaysaa ma garatay aniga maalintan massage therapy leeyahay runtii been ma idiin sheegayo waan ku xisaabtamaa maalintaas jirkoo dhan yacni iskama dhigi kartid jirkaagoodna waa sidaa haddaad ka fadhiisatid maanta dee hadhow toobas wey ku dhammaato waxaad qabsan kartid ma laha reerkaadii waxuma qaban kartid naftaadii waxuma qaban kartid xanuun baa kusoo ridanaya marka walaalayaal massage terabiga ku dadaala marka anigu waxaan idiin gelayaa yacni maxaan ka faa'iiday been ma idin sheegay maalintii ugu horreysay aan massage terabiga tagaayay waa iska garan kartiin qofka hadduu rumatiisan qabo especially dhegeysta si fiican dadka rumatiisanka qaba ee baqaya ee dhahaya anaga nalama taaban karo jirkaan xanuunaya oo lug baa i xanuunaysa gacan baa i xanuunaysa jirkayga lamaba taaban karo sidee loo taabanayaa waan fahamsanahay waxaad yacni ka hadlaysiin aad baan idin fahamsanahay laakiin rumaysta faa'iidada aad ka heli doontiin baa ka fiican wax walbaba yacni it's worth it yacni faa'iidada aad ka helaysiin ayaa wax walba ka weyn cabsidu darishaday ka baxaysaa waa maalmaha hore ha cabsooninina walaalayaal haddaad rabtid inaad caafimaadid ha cabsoon naftaada dhiirigeli marka ayaamaha ugu horeysa waa iska yara xanuun baa dareemaysaa because you don't want it in lagu taabto you don't want it meeshii ku xanuunaysa in jirkaaga la taabto oo la duugo oo marka waxaas dhan way kaa ba'ayaan marka dambe waabaad usii bogaysaa marka dambe waxaad dareemaysaa fudayd baad dareemaysaa dhiiggii baa ku furfurmaya lafihii baa ku garaacaya because you know why mid kalena a idin sheego maxay dadku lafuhu u xanuunaan waxay u xanuunayaan dadka lafuhu waxay u xanuunaan laba wax waxay u xanuunaan hilib badan oo ku saaran oo meeshii laftii hilib culays baa yacni culays badan baa dusha ka saaran laftii miskiinta ahayd waxa weeye culayska ma qaadi karto marka walaalahan waxaan idinkula talinayaa oo kale gabdhaha iyo wiilalba anoo idinkala saaraynin qof walba waa inuu daayadkiisa iyo cuntadiisa cunto caafimaad loo fiican cuno si uu ma aragtay caafimaadkiisa uu insha allah intuu adduunka nool yahay uu caafimaad fiican u helo saxan
tan labaadna waxa weeye murqihii oo adkaaday. hadday murquhu ku adag yihiin waxaad ogaataa inay lafuhuna ku xanuunayaan, waayo murqihii oo adagi laftii yacni shaqay waxay u baahan tahay. laftu wax ma wado walaal, murqaha weeye waxa wax wadaa. marka murqi hadduu adag yahay uu jiitamayo ama uu xidhmay, yacni subxaan allah, hawshii waxaad ku sii daynaysaa laftii keliya. marka yacni waad og tahay laba gacmood hadday gacani jiran tahay, gacanta kale yacni waxay dareemaysaa keli bay dareemaysaa. laba gacmood baa wax lagu qabsadaa, waa sidaasoo kale. marka muruqan aad u jeedid laftu caawinaya si aynan laftaasi hawsha ugu badanin. hadhowt marka waxaa imaanaya lafa xanuun, waxaad leedahay lafta ay xanuunaya. actually lafta ma aha, waa masalka weeye. you have to masalkaaga waa inaad jilcisid say laftu yacni masalkan jiidmaya lafti yani xanuun iyo dhaawac usoo jiidaya. marka you have to take care of your muscle first. marka walaal faa'iidadii aan ka helay anigu waxay ahayd masalkaygii oo yacni markii la duugay baa lafa xanuunkii tirada badnaa waa iga ba'ay alxamdulilah rabbilcaalamiin. xataa waad garanaysaan qofka bararku rheumatismka badanaaba barar baa qofka ku jira, kala gosyada barar baa kaa geliya, meel walba barar baa kaa geliya. marka walaalayaal markii aad lagu duugo waxaad dareemaysaa xataa bararkii waa kaa kala yaraanaya. oo xataa yacni inagu dadka badanaaba ma fahamsana. haddaad aragtid meel laabata ah oo yacni ama gacan ama lowga waxaa jira wax biyo ah, sometimes fluid baa ku dhex jira. hadduu adkaado oo sidii gaadhi hadda banaanka markuu qabowgu jiro oo kale, gaadhiga wuxuu u baahan yahay in la kululeeyo soo ma. marka gaadhigaasi waa sidaasoo kale jirkaaguna, lowyadaadu waa sidaasoo kale dhaqdhaqaajinaya, kurxinta dhaqaajinaya, meel walba kala goys dhaqaajinaya. haddii ay meesha isku dhegto maxaad dareemaysaa? yacni imagine adbaa maskaxdaada ka qiyaas xanuun intee leeg baad dareemaysaa. waxyaalahaasoo kale ayaa keena marka yacni lafa xanuunka iyo murqa xanuunka. marka massage therapy-ga walaalayaal aada iyo aad bay ugu fiican tahay dadka murqaha xanuunayaan. tan kale labaad, dadka dhabarka laga hayo iyo dadka qoorta xanuunaysona aad buu ugu fiican tahay massage therapy. waayo badanaaba waxaa jira neerfoyaal ma aragtay laf dhabarta dheer ku yaala baa jira. dad badan oo yacni markaa neerfahaasi markay meel istaabato, lafta dhabarka oo kale neerfo meel istaabtaan, qofkii dhabarkii ma kala toosi karo, way xanuunaysaa, aad iyo aad bay xanuunaysaa. xataa ma socon karo qofku, socodka xataa ku yaraanaya. marka massage therapy-gu faa'iidada ay ku leedahay halkaas waxay tahay, oo yacni dhabar xanuunka faa'iido weyn ugu tahay in massage therapy-ga aad tagtid oo lagaa soo duugo dhabarka, waxay tahay waxaa jira lafta dheer labo yacni waxaa mara mataqaanaa waxa la yidhahdo membrane-kaasi waa carjow yaroo labada dhinac adba markaad duugaysid ba laftaada dheer saa u taabo, laftii dheereed weeye. labada dhinacna carjowo yaryaroo jiljilicsan baa dhinac mara oo ilaahay ugu sameeyey. kuwaasoo kale marka lagaa duugo oo neerfihii meeshii xididkii sasaarmayay lagaa duugo, caafimaad weyn baad dareemaysaa, special dadka dhabarka laga hayo. marka insha allah biidnillaah until next time waxaan idinka tegayaa khayr baan idinka tegayaa. marka haddaad nagu cusub tahay nagu darso subscribe walaalayaal, thumbs up. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba meel walbaad joogtaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.